talooyin faa'iido badan leh, wax ku ol leh, talooyin ku anfacayo adduun iyo aakhiro. kow, iska ilaali inay ku hogaamiso naftaadu ka hor inta adiga aadan hogaamin. labo, waa camal shaytaan, cilmi aadan u baranin alla subxaana wa tacaala dartiisa. saddex, ka fogow waqti kusoo maray oo aadan kaga faa'iidaysanin wixii alla subxana wa tacaala ugu talagalay oo uu ku abuuray. ka fogow in aad xasidid qof alla subxaana wa tacaala uu u nimceeyey. ka fogow maal ku dhaxalsiiyaa baqiilnimo markaad heshid kadib. midda koowaad, naftaada inay ku hogaamiso wax fiican ma aha, waa waxyaalada lagu halaagsamo. oo nabi sal ly slam wuxuu dhahay 3 shay waa lagu halaagsamaa: shuxun mutaacun, wa hawan muttabac, wa icjaabu lmar-i nafsah. yacni qofka inuu naftiisa ay hogaamiso waa waxyaala lagu halaagsamo. nafta waxaa raba adiga inaad hogaamisid. midda labaadna, hawada oo la raaco, qofka shahwadiisa uu iska raaco ayadana lagu halaagsamaa. midda saddexaadna, qofka hadduu naftiisa cajabgelisana waa lagu halaagsamaa. midda waa midda koowaad, waa talada koowaad. talada labaad, cilmi aad alla darti u baranin waa camal shaytaan. oo qofka dadka qiyaamada naarta lagu horgelin doono waxaa kamid ah qof caalim ah oo cilmigu u baranayay alla darti u barana ka ahayn wuxuu ahaa adduunye ku raadis oo amaad xoolo iyo dhaqaale iyo dheef adduunye ku hashaabay ka ahayd. taasna ayadana waa camal shaytaan. talada saddexaad waxaa weeyaan baqiilnimo. yacni xoolo ayaad heshay kadib waxay ku baday baqiilnimo. oo dadka hadda xoolaha inta badan haysto waa dad gacmaha u laaban oo wax ka bax ma lahan. waa dadka ugu wax bixid xun. gila wax la bixiyo dadka kale ayaa dhamaaba. dad kale waxba aan haysan ama dhexdhexaadka ayaa dhamaa ka fiican xagga wax bixiska. ayagu waa ugu daran yahaan. marka taasna lama rabo. wa amaa binicmati rabbika faxadith. alla subxana wa tacala kan uu leeyahay a ashkur am akfur. waxan waa lagu tajribeynaya, waa imtixaan, waa lagu fiirinaya si aad u isticmaalayso. marka haddii sadaqada aad ka bixinin oo waajibaadka ka saarna aad ka bixinin, dhibkay leedahay, qiyaamo lagu cadaabaya. marka taasna iska ilaali. midda saddexaad, ka fogow in qof alla subxana wa tacaala uu u nicmeeyey inaad xasidid. xasadku adigan buu wax ku gaarsiini dhibaatayn, qofkii waxa ka tari maayo. cid ku ogna malahan, keligan baad rafaasan. xasadkana waxaan leeyahay wuxuu acmaasha wanaagsan, qofka acmaashii wanaagsaneed wuxuu u cunaa sida dabka qoriha ay u cunaan. yacni dabka qoriha ku dhamayn soo maaha, sidaas oo kale ayuu xasidnimadana acmaashaadi, soonkaadi, salaadaadi, sakadaadi, wixii wanaagsan samaynayso dhan bay u cunaysaa. marka xasad waxa ku heli maysid, qofkiina waxba kagama goynaysid, adigana waad ku khasaaraysaa. taasna iska ilaaliyaysan dhici qof alla u nimceeyey inaad xasidid. tan u dambaysa, waqtigu waa inaad kaga faa'iidaystaa alle cibaadadiisa, dikriga, quran akhriska, salliga, wixii lamidka. yaysan dhicin waqti intuu kusoo maro in haddana aad wax qiyaama aadan u horumarsanin aad ku darsanin waqtigaas. waayo nabi sal l slam wuxuu dhahay maa min qawmin yajtamicuuna fi majlisin laa yadkuruuna allaha tacaala fiih ilaa qaamuu can mithli jiifati ximaarin walahum lxasra. wuxuu dhahay nabi sal slam, qowm iyo dad meel kuma kulmaan meeshaasoo aysan ku xusin alle subxaanahu wa tacaala. salliga, adkaarta, wax ay xuseen male. adduunyan bay kaga sheegeen, haddana way kala tageen. waxay ka tageen meeshaas sidii ayagoo yani dameer baktigiis oo kalea. khasaarto iyo nidaamo iyo shalaytana way u ahaanaysaa. marka waxaa la rabaa marka meel iskugu imaataan intaa meesha goobta la fadho in hataa adduunya hadaa ka sheekaystaan, laakiin dikriga alle subxana wa tacaala inaad wax ka xustaan oo ku sheegtaan. markaad kala tegaysaanna ducadii nabiga aad wada garanaysaan inaad akhrisaan. intaas ayaan jeclaysay inaan kusoo gudbiyo. dhalintana maanta aad iyo aad waxaad diinta ku dhaqmo yar tahay.